kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba ku soo dhowaada qaybtii 12aad ee buugga sheeko-faneedda ah ee Saxarla ee uu qoray Faarax Maxamuud. Qaybta 12aad ee buugguna waxa ay ku bilaabmaysaa sida tan: in 24 saacadood ka badan ayaa ka soo wareegtay ilaa iyo intii uu Cawaale albaabka ka baxay. Qadar ayaa isweydiisay intay saacadeedii eegtay. Maxaa ku dhacay ninkii reerka? Qadar ayaa inta ay u yeedhay darawalkii oo albaabka hore taagan oo sigaar ku cabaya ku tidhi, waryaa Dalmar, kaalay kaxe. Kolkaas buu darawalkii weydiiyey, xaggee ayaynu Qadar aadnaa? Inta ay gaadhigii shirka u gashay iyada oo dibinta hoose qaniinaysa cadhana ka muuqato ayay ku tidhi, ii kaxee cisbitaalka Digfeer. In ka badan 4 saacadood markii ay maqnayd ayay soo noqotay iyada oo hungo ah oo odaygii soo weyday. Cidna juuq umay odhan ee qolkeedii ayay toos u gashay. Habeenkaasi waxa uu u ahaa Qadar habeen baas, waxaana ku soo maaxday tuhunkii ay weligeed ka qabtay Cawaale ee ahaa in magaalada naag kale ugu qarsoon tahay. Inkasta oo aanay marna indhaheeda ku arkin ama xaqiiqo la taaban karo arag, waxa ay dumarka saaxiibadaheed soo gaadhsiiyeen xan kala duwan oo qaarkood u sheegeen in uu magaalada khudba sir ku haysto. Qaar kalena waxay u sheegeen in xaas rasmi ah oo 2 caruur u lehi magaalada dhinac ka degan tahay. Inkasta oo Qadar sheekooyinkaas muddo badan aaminsanayd, haddana wax u xaqiijiyo way weyday. Hase ahaatee Qadar oo ahayd ruux aad u kaftan badan marka ay saaxiibadaheed la joogto, waxa ay mararka qaarkood kula kaftami jirtay in dhiigkarka ay qabto uu sabab u yahay naagaha kale ee Cawaale magaalada ku qarsanayo. Markii ay cisbitaaladii magaalada ugu waaweynaa ka soo weyday Cawaale, waxa ay iska dhaadhicisay in uu u dhuuntay oo uu ku maqan yahay naagihii magaalada ugu qarsoonaa. Gabadha yar ee uu la baxsadayna ahayd marmarsiyo uu weligiis raadinayay. Kadib markii ay in cabbaar ah qolkeedii dhex taagnayd iyada oo aad u fikiraysa, sariirteedii ayay isku tuurtay. Inkasta oo ay isku dayday in ay gamacdo si ay isu ilowsiiso ciilka iyo cadhada haya, haddana wax hurdo ahi way ku soo dhici weyday. Waxaa markastay indhaha isku qabataba hor imanaya Cawaale oo naag la jiifa oo aanay ka qasnayn. Markii ay ka soo wareegtay in ka badan 2 saacadood ee ay marba dhinac isu rogaysay gam ina weyday ayay taleefankii qabsatay oo wacday dhowr saaxiibadaheed ah oo ay kalsooni weyn ku qabtay, iskuna haleynaysay in ay u soo guurman doonaan. Qadar saacad ka yar ayaa waxaa hoonkii ugu horreeyay albaabka ka soo yeedhiyey 4 Land Cruiser ee saaxiibadaheed wateenkii ugu horreeyay. Kadibna mid ayay u soo joogsadeen iyaga oo waxyar kala dambeeyay. Waa Caasha Dheer, Aamina Xayiisi, Xaliimo Daahir iyo Xamdi Gaabo. Markii waardiyihii ganjeelada ka furayna xaggaa iyo xaggaa midna ma eegine, waxa ay toos isugu shubeen qolkii Qadar Duwane. Markii ay sariirtii ka soo sara fariisatayna dusha ayay isaga shubeen iyaga oo dhundhunkanaya una muujinaya in ay aad uga xun yihiin dhibaatada ku dhacday. Deedna inta ay miis sariirta agteeda yaalay gacanta ugu fiiqday ayay ku tidhi, walaalayaal miiskaas boorsooyinka saarta. Cabbaar markii ay sheekaysteen, Xamdi Gaabo ayaa waxa ay ka soo saartay boorsadeeda 10 marduuf oo qaad ah oo inta ay dhexdooda dhigtay ku tidhi, na arrintan in aynu u qaylo mooyaane waxba ma xallin karayno. Kadibna albaabka ayaa la isu xidhay oo la bilaabay in la falanqeeyo arrintii dhacday iyo maqnaanshiyaha Cawaale iyo wixii laga yeeli lahaa. Habeenkaas oo dhan waxaa la rogrogayay oo la lafagurayay meesha ninkaasi ku maqnaan karo, waxaana ugu dambeyntii la guddoonsaday in waqti kastaba ha ku qaadatee ninkaas beritoole lasoo helo. Waxaana la kala qaybsaday hawshii baadidoonka. Qadar waxaa loo xil saaray in ay xafiisyadii u tegi jiray iyo saaxiibadii u raaci jiray ka raadiso. Saaxiibadaheedna waxa ay ballan qaadeen in ay dhammaan ilihii xanta iyo meelihii lagu tuhmayay ay ka raadin doonaan. Dhibaatada ugu weyni waxay ahayd Cawaale oo aan la aqoon xafiis rasmi ah oo uu ka shaqeeyo. Dadka xaafadda degani waxa ay ku xaman jireen in uu ciidamada waxbasaasa ee NSS-ta u shaqeeyo.
hase ahaatee isagu waxa uu sheegan jiray in uu madaxtooyada ka shaqeeyo oo uu madaxweynaha la taliyo u yahay. meeshuu doonaba ha ka shaqeeye, waxaa hubaal ahayd in uu meel sare oo rag awood lihi fadhiyaan ka shaqeeyo. Caasha Dheer oo kow ka ahayd dadka xanta Cawaale soo gudbiya, hadda ka horna soo warisay in naagta u qarsooni tahay gabadh da'yar aadna u qurux badan oo shirkadda diyaaradaha Somali Airlines u shaqaysa. waxay habeenkaas saaxiibadaheed ku amreen in wax kasta oo ay ku qaadataba ay naagtaas diyaaradaha raacda warkeeda oo buuxa soo hesho. Aamina Xayeysi lafteedu waxa ay hadda ka hor soo warisay in naagta odayga u qarsooni tahay gabadh neeras ah oo cisbitaalka Digfeer ka shaqaysa. Aamina Xayeysi waxa lagu xaman jiray in ay beenta u yara qariso, markaa hadalkeeda iyo waxa ay soo sheegto midna culays weyn ma lahayn, balse maalintaas beentu xataa waxbay anfacaysay. waxaana loo sheegay in ay qoftaas dhakhtarka ka shaqaysa arrinteeda daba gasho. Markii hawshii la kala qaybsaday kadib ayay kaftan iyo xifaalo isu galeen si ay Qadar xanuunka iyo walwalka u ilowsiiyaan. Xamdi Gaabo oo dadka aadka u kaftanka badan ahayd ayaa bilowday oo tidhi, waxaan idin weydiiyey, haddii ninku naagihii u qarsoonaa u tegay oo uu ku maqan yahay, xaggee ayuu tii yarayd ee saxarlana ku lumiyey, mise lafteedii ayuuba la baxsaday? Caasha Dheer oo ahayd dadka hadalku sida fudud uga soo baxsada ayaa inta ay soo booday tidhi, iyadu ma naaga ayay kala jeceshahay, kolley midunbay u shaqayn lahayde. waxaana dhici karta in haddii ay dilkii Cadar Duwane ka raysato sooba noqon weydo. intaasi markii ay afkeeda ka soo baxday oo ay weli rabto in ay sii hadasho ayaa Xaliimo Daahir oo dhinaceeda fadhiday bowdada ka dhirbaaxday oo ku tidhi, naga aamus, adiguna had iyo goor waxaa loo fadhiyin ayaad ka hadashaaye. Qadar oo wejigeeda xanaaq ka muuqda ayaa dhinaca Caasha Dheer eegtay. intaanay Caasha Dheer u jawaabinna waxaa hadalkii boobtay Aamina Xayeysi, iyada oo qoslaysa ayayna tidhi, Qadar waa taqaanaa Caasha Dheer oo way iska kaftamaysaaye, hadalkeeda waxba ha ka soo qaadin. Xaliimo oo doonaysa in ay sheekada bedesho oo Qadar ilowsiisa ayaa tidhi, alla waa waqti dambe, beritana howl badan bayna sugaysee, aan meesha ku kala hoyano. Qadar oo aada u xanaaqsan ayaa iyada oo gacanta ku taagaysa Caasha Dheer tidhi, maya Xaliimo Daahir u kaadi. Caasha, waxba yaynaa sheekada hoos isugu dhigin, waynu is ognahay oo odaygaaguna kayga ka gododla badan. gabadha kuu shaqaysa ee aad eddada u tahayna ugu yaraan 100 jeer ayaa cisbitaalka loo dhigay dhaawacyadaad u geysataye, waxba aniga ha ii duur xulin, waynu isgaranaynaaye. Xaliimo oo ahayd qof aad miisaan u leh oo wax kala dejisa marka xaaladi xumaato ayaa iyada oo la hadlaysa Qadar iyo Caasha Dheer tidhi, salli calaa nabi, shaydaanka iska naaro oo hadalka halkaas ku joojiya. Xamdi Gaabo oo aad u xanaaqday ayaa tidhi, yaadha waa dumarka, meeshan isuguma aynaan iman in aynu inagu hoos isugu noqono oo isrifno, dan ayaynu isugu nimi. horena arrimahan oo dhan waynu ka wada hadalnay, waynaanu wada ogsoonnahay in nimanka aynu guryaha u joognaa kulligood wada gododlayaal yihiin. anigaygan idinla hadlayo waad wada ogsoontihiin in indhahayga oo 15 ah gabadh 15 jir ah oo uu 100 jeer dhali karay la guursaday. joojiya nacnacda oo meeshay nagu kala wada. hadalkaas qiirada leh ee Xamdi Gaabana cidi hadal dambe kama daba celin. markii Qadar iyo Caasha Dheer gacanta la isu saaray ee lagu yidhi iscafiyana, waxa ay ku tashadeen in ay beritoole bacda duhurka guriga Qadar isugu yimaadaan si la isu wardhaafsado. maca salaama iyo haddii ay wax war ahi kugu soo kordhaan nala soo socodsii ayaa lagu kala tegay. kadibna inta Qadar labada dhaba laga wada dhunkaday ayay baabuurtoodii u baxeen. intii Qadar iyo saaxiibadaheed ku mashquulsanaayeen meeshii saxarla iyo Cawaale laga raadin lahaa, Keenadiidna waxa uu ka dhammaan waayey in uu gurigii Cadar Duwane ku ag warwareego si uu u hubiyo in saxarle ay soo noqotay iyo in kale. waxa ay ahayd qofka keliya ee ciirsi iyo wehelba u ahayd, waxaana uu ka warwarsanaa waxa ay ku sugan tahay. Qadar tuhunka ay ka qabtay Cawaale in haweenay kale meel u joogto waxa uu ahaa mid aan mugdi kaga jirin oo ay aaminsanayd. hase ahaatee xan mooye weligeed wax cad kuma ay qaban. Qadar waxa ay ahayd ruux aad u kulul oo aan howlaheedu yarayn. Cawaalena waxa uu ahaa nin aad u degan una sir badan, dadkuna ay ku xaman jireen in inta muuqata ileegi u aasan tahay.
maadaama Cadar aada u kululeyd Cawaalena ay aada u dhibi jirtay mararka qaarkoodna khalqiga dhexdiisa ay kuleetiga ku qabsan jirtay oo ay gaar ahaan reerka ay ka dhasheen arrintaasi kula qoloobeen isagana ay ku caayi jireen in naagtu ka adag tahay. sidaas darteed cidina uguma garaabi jirin calaacalkeeda xagga gododleynta ku saabsan. maadaama Cawaale aada dhaqaalihiisu isaga wanaagsanaa Cadar waxba kama hagran jirin oo intaas waxaa ka muuqan jiray korkeeda iyo hoygeedaba dhaqaalaha soo gala. had iyo jeer lacagtu shandadeeda kama dhammaan jirin. xafladaha ay dumarka saaxiibadaheed iyo asxaabta kale ay u samaysaana gurigeeda kama idlaan jirin. dhoofka ay Yurub iyo Carabaha ku tagtaana ma kala guyi jirin. dad badan oo Cadar saaxiibadaheed iyo deriskaba ka tirsan waxay aaminsanaayeen in laba arrimoodba Cawaale uu Cadar dhaqaale ahaan ugu roonaa. waa ta koowaade isaga oo dhibkeeda iyo lurkeeda isaga jeedinayay, iyo waa ta labaade isaga oo rabay in uu helo fursad uu haweenka u qarsoon ugu tago marka ay Cadar dhoofto ama ay saaxiibadaheed la baashaalayso. sida ay Cadar iyo saaxiibadaheed tuunsanaayeenba dhaawaca Saxarli waxa uu ahaa shimbir khayr oo Ilaahay u soo diray Cawaale. wuxuuna helay fursad weyn oo aan weligii soo marteen inta uu Cadar la joogo. Cawaale waxa uu aada caan ugu ahaa sirta iyo raadkadashada, waana xeeladaha ka badbaadiyey in ay Cadar soo hesho hogaga wax ugu qarsoon yihiin iyo meelaha uu tago xilliga uu guriga ka maqan yahay. waxa uu wax badan Cadar u sheegi jiray in shaqada uu qabtaa safar u baahan tahay, mararka qaarkoodna uu wafdi madaxweynuhu wato dibadda u raaco. markasta oo uu yidhaahdo dibadda ayaan ka soo laabtayna isaga oo dhar cusub iyo hadiyado kala duwan Cadar u sida ayuu soo noqon jiray. waxaana Cadar ka dhaadhacsanayd in hadiyadahaasi ahaayeen raadgadasho uu ku khiyaamaynayo. hase ahaatee wax caddeeya maalin qura in ninkaasi dhoofay oo dibad ka soo laabtay waa la waayey. waxaase Cadar iyo saaxiibadaheed mucjiso ku noqday haddii ninku aanu dhoofin meesha uu dharka iyo hadiyadaha uga keeni jiray, kuwaasi oo ay weliba ka muuqdeen calaamadihii in dibadda laga soo iibiyey. meeshii ay Cadar ka filaysay inuu cisbitaalada waaweyn ee magaalada sida Digfeer gabadha Saxar la geyn doono, waxa uu geeyey dhakhtarka xoogga dalka oo badanaaba loo ogolaa dadka ciidamada ka tirsan iyo madaxda dowladda. dhakhtarka xoogga dalka waxaa ka shaqayn jirtay Saafi Kooshin oo ahayd qofta Cadar ku wareertay, ahaydna xaaska labaad ee Cawaale u qarsoon. Saafi waxa ay neeras ka ahayd dhakhtarka, waxa ayna Cawaale isku barteen mar saaxiibkii Bulxan oo keli laga qalay uu dhakhtarka ugu tegay. Saafi iyo Bulxan laftiisu aad ayay reer ahaan isugu dhowaayeen oo waxay u arki jirtay in nin adeerkeed ah oo ay mar walba qadarisa yahay. Cawaale markii ugu horeysay ee uu la kulmay Saafi waxa uu ka yaabay hufnaanteeda, kartideeda, kalgacalkeeda iyo hadal macaanideeda. mar ay Bulxan isku kaliyeysteen ayuu Cawaale isaga oo Bulxan la kaftamaya ku yidhi, war Bulxan, gabadha miyaa la qabaa? wuxuu ugu jawaabay, ma Saafi Kooshin? Cawaale oo weli Saafi la yaaban ayaa yidhi, haa. Bulxan oo bakeeri biyo ah oo miiska dhinaciisa yaalay saarnaa tiigsanaya ayaa yidhi, Saafi nin labadiisa waalid u soo duceeyeen oo keliya unbaa heli kara. markii ay sheekadii cabbaar isla jiijiideen kadib ayuu Bulxan u sheegay in hadda ka hor iyada oo ardayad ah aabaheed ku qasbay oday maalqabeen ah, kadib markii uu lacag fara badan ku qarqiyey odayga. waxaa kale oo uu u sheegay in odaygii 2 sano isqabeen oo 2 caruur ah silic kaga dhalay. wuxuu Bulxan u sii raaciyey, arrintaas aniga iyo Saafi aabaheed waanu ku kala dhimanay oo annaga oo aan muddo 10 sano ku dhowaad ah wada hadlin ayaa beri dhoweyd oo uu xajka tegay nala heshiisiiyey oo aanu iscafinay. Cawaale oo xiisayn dheeraad ah oo uu Saafi u qaba muujinaya ayaa yidhi, war Bulxan, waad ogtahay waxa gurigayga haystee, saaxiib miyaanay kula ahayn in Saafi tahay midii aan ku degi lahaa? xoogaa markii ay kaftan iyo sheeke isla jiijiideenna Bulxan ayaa aakhirkii kula taliyey in uu isaga iyo Saafi isbaro, laakiin ay isbarashadaasi ka dhacdo marka uu dhakhtarka ka baxo. waxaa kale oo uu Bulxan ku taliyey in isbarashadu ka dhacdo guriga Saafi Kooshin, isaguna u sheegi doono in ay maalintaas labadoodaba qada u kariso, si Cawaale indhihiisa ugu arka awoodda, dadnimada iyo kartida ay Saafi leedahay.
maalintii ugu horreysay ee Cawaale qadadii Saafi ay karisay cunayna waxa uu gaadhay go'aankii ugu dambeeyay ee uu gabadha ku dooni lahaa. Waxa uuna si weyn isugu qanciyay in ay Saafi tahay tii uu ku degi lahaa kuna nasan lahaa. Markii ay Cawaale iyo Saafi fursad wanaagsan isu heleen si fiicanna u sheekaysteen, waxa uu ugu warramay si daacad ah. Waxa uu uga sheekeeyay xaaladda guurkiisa iyo gurigiisa. Waxa kale oo uu ka codsaday in xaqiiqda uu ku nool yahay ay Saafi Kooshin ku aqbasho, isaguna uu aad u xaq dhowri doono kuna dadaali doono in uu ka maydho wixii ay lur iyo leerleel odaygii hore ka soo martay. Waxa kale oo uu u ballan qaaday in uu labadeeda hablood ee Hibe iyo Hoodo ula dhaqmi doono si aan ka duwanayn sida uu carruurtiisa ula dhaqmo. Saafi waxa ay ahayd qof shaqadeeda laga jecel yahay, dhaqaalaheeduna aad isaga wanaagsan yahay marka dad badan oo aynigeeda ah loo eego. Sababta ugu weyn ee ay Saafi u guursan weydayna waxa ay ahayd iyada oo walwal weyn ka qabtay in ay labadeeda hablood oo ay aad u jeceshahay u soo hoysan nin aanay kalsooni ku qabin ama doonaya in isaga la masruufo. Waxa kale oo ay gaadhay da' dhexe oo kuwii da'deeda ahaana aanay jeclayn in ay guursadaan gabadh carruur haysata. Kuwa ka weynina u arkayeen in ay mudan tahay in khudbad sir keliya laga dhigto. Haddaba inkasta oo aanay Saafi marnaba doorbidayn, rajana ka qabin in ay nin naag iyo carruur daba jiitamayaan guursato, waxa ay aad ula dhacday sida ixtiraamka weyni ku jiro ee Cawaale carruurteeda uga hadlay iyo wanaagga uu u muujiyay intii ay wada joogeen. Inkasta oo ay Saafi khudbad sirta iyo wixii la mid ah ay aad u nacbayd oo ay u arkaysay dhaqan qalloocan oo dumarka sharaftooda iyo dadnimadooda hoos loogu dhigayo, aad ayay talo uga caddaatay markii uu Cawaale u sheegay in haddii ay xaaskiisu ogaato in uu la guursaday qalalaasaha iyo dhibkay geliso aanay weligood dhammaanayn. Markii uu ka codsaday in guurkoodu sir ahaado, aad ayay uga adkaatay Saafi. Waxa ayna ka codsatay Cawaale inuu waqti siiyo ay arrinta kaga fekerto. Arrintu si kastaba ha ahaatee, markii ay si fog oo is-uurbaadh ah u sii sheekaysteenna, waxa ay u sheegtay Cawaale in ninkii labada carruurta ah ka dhalay hadh cad kaga dhaqaaqay oo aanu weligiis gacan qaban. Markii ay isaga kala tageen kadibna dhowrni soo damceen, hase ahaatee ay ka doorbiday in ay labadeeda carruura korsato intii ay kuwo kale u yaacin lahayd nin aan masruufkooda awoodin ama guriga waxba ku soo kordhinaynin. Sheeko kasta oo ay Cawaale u sheegtay wuu ku raacay, wuxuuna u sheegay in ay go'aan wanaagsan qaadatay markii ay go'aansatay in aanay nimankaas guursan. Sidaas darteed, iyadoo aad ula dhacday dabacsanaantiisa iyo garashadiisa fog oo rag badan oo Soomaali ah ka maqan, ayay go'aansatay inay guursato. Sidaas ayaanu guurkii qarsoodiga ahaa ee Saafi Kooshin iyo Cawaale ku dhacay. Markii saxarla dhakhtarka la keenay, waxa ay ku jirtay dhowr saacadood intii meeshii dillaacday laga tolayay. Kadibna waxa uu Cawaale geeyay gurigii Saafi. Markii aqalkii Saafi la geeyay, waxa la siiyey sariir goglan oo iyada u gaar ah. Waxa la siiyey dhar cusub oo ay ku bedelato. Waxa la siiyey casho macaan oo sariirta ku jiiftay dusheeda loogu keenay. Waxa ay ahayd markii ugu horreysay ee weligeed cunto sariirta loogu keeno, ilaa iyo maalintii ay u timid Cadar Duwane, in iyadu ay dad wax u geysa mooyaane weligeed cidi wax uma keenin. Cawaale dhaawacii saxarli waxa uu ahaa shimbir khayraad oo Ilaahay u soo diray. Waxa uu u arkay in ay ahayd fursad qaali ah oo uu waqti kula qaadan karo Saafi oo uu aad u jeclaa. Laakiin cabsida uu ka qabay Cadar Duwane darteed aanu waqti ku filan siin jirin. Sida haweenka jaarku ku xaman jireen, sababta keliya ee uu Cadar Duwane kula joogay waxa ay ahayd isaga oo adeerkii Xaaji Duwane ku qadarinayay. Cawaale waxa uu ku dhashay miyi. Hooyadiis waxa ay dhimatay isaga oo 2 jir ah kadib markii ay fooshii ku xumaatay. Kadibna iyada iyo ilmihii caloosha ku jiray baa isku dhinteen. Aabihiisna waxaa miyiga lagu dilay Cawaale oo 6 jir ah kadib markii ay nimo raaska uu ka soo jeedo u dhashay oo uu tuni ka dhaxaysay ay cidla ka heleen. Kadib markii intaasoo ibtilo ay ku dhaceen, ayaa Duwane oo adeer labaad u ahaa go'aansaday in uu isagu qaato oo koriyo. Cawaale iyo Cadar Duwane iska guri ayay ku soo koreen. Kadib markii labadooduba qaan gaadheen, ayuu Xaaji Duwane go'aansaday in uu labadooda isu aroosiyo. Inkasta oo aanu shilin haysan markii uu beledka soo galay, Xaaji Duwane markii dambe waxa uu noqday nin dhaqaale ahaan aad u ladan, laguna xaman jiray in uu ka mid yahay ragga dalka ugu lacagta badan, laakiin aanay ka muuqan.
Xaaji Duwane oo ahaa nin aad iyo aad u gacan adag waxaa lagu dacaayadeyn jiray in sababta uu Cawaale iyo Qadar isugu daray ay ahayd isagoo ka warwar qabay in haddii gabadhiisa mid qawaafa oo aan waxba haysan soo doonto ay khasab ku noqonayso in uu iyada iyo caruurteedaba masruufi doono. Cawaalena inkasta oo uu Qadar dhibteeda ogaa haddana way ku adkaatay in uu maya yidhaahdo oo adeerkiisii soo koriyey ka abaaldhaco. 7 casho ayaa kasoo wareegay maalintii Cawaale uu saxarla dhakhtarka u qaaday. Qadar Duwane waxa ay ku dhowaatay in ay waalato. Wax kasta ayay samaysay, meel kasta oo ay ku tuhunsanayd ayay ka baadhay. Wax kale iska daayo booliiska ayay ka dacwaysay iyada oo ku eedeysay in uu la baxsaday gabar yar oo ay habaryar u tahay. Inkastoo aan Qadar shaki kaga jirin in Cawaale naagihii u qarsoonaa ku maqan yahay, waxaa aad uga sii cadhaysiyey sababta uu gabadhii yarayd ee u shaqayn jirtay uu ugu soo celin waayey. Galabnimadii maalintii 7aad ayuu Cawaale taleefan Qadar u soo diray oo uu u sheegay in uu garoonka diyaaradaha joogo oo uu gabadhii Talyaaniga geynayo si loogu soo daaweeyo. Waxa kale oo uu u sheegay in inanta arrinteedii kasii dartay oo ay qalliin u baahan tahay. Qadar oo markeedii horeba u dhalatay qof aad u xaruuri ah, hadalkiisii ma sii dhageysan qaylo aan kala joogsi lahayn ayay ku sii daysay. Wixii ciil iyo cadho ku gaaxsanaa ayay ooda kaga qaaday. Waxay u sheegtay in ay ogtahay meesha uu joogo, waxayna u ballan qaaday in uu ka qoomamayn doono ficilka aan loo dulqaadan karin ee uu ku kacay. Markii ay muddo 20 daqiiqo ku dhow murmayeen oo isdhagaysigoodii adkaaday ayuu Cawaale waxa uu u sheegay Qadar in waqtigii diyaaradda la geli lahaa la gaadhay oo uu taleefanka dhigayo. Cirka inta ay qaylo isku sii shareertay ayay ku tidhi, war meesha doontaba ka baxo, si degdeg ah gabadhayda igu soo celi. Kadibna iyaga oo labadoodiiba cadhaysan ayay taleefanadii isku dhigeen. Ujeedada ugu weyn ee Cawaale u wacay Qadar waxa ay ahayd in uu dareensiiyey in aanay isku daalin raadintiisa ee ay cagaha dhulka dhigto oo iska nasato. Qadarse ma ahayn qof sidaas ku samraysa ama sheekooyin aan jirin si yar looga dhaadhicin karo, inkasta oo aanay Cawaale markii hore maskaxdiisa ku jirin. Markii isaga iyo Qadar murmeen kadib ayuu ku fekeray in ay hadda tahay fursadii ugu wanaagsanayd ee uu saafi tamashle ugu kaxayn lahaa Talyaaniga, oo ay aad u jeclayd in ay maalin nolosheeda ka mid ah tagto. Isaga oo markaas inta uu taleefankii soo qaaday raba in uu dirsado ayaa waxaa albaabka ka soo gashay Saafi oo markaas shaqo ka soo noqotay. Inta ay dhabanka ka dhunkatay ayay ku tidhi, iska waran xabiibi, yaa maanta kaa xanaajiyey. Cawaale ayaa ugu jawaabay, xabiibi balaayo ma jirto, tii Qadar Duwane ahayd ayaanu murannay oo iga xanaajisay. Inta ay madaxa ruxday oo gacanta madaxa ka saartay ayay ku tidhi, xabiibi waxaad cabta ma kuu keenaa. Isaga oo aad moodid in wejigiisa wahab laga dulqaaday, neecaw naxariis wadaana qalbigiisa taabatay, ayuu ugu jawaabay, xabiibi shaahaagii macaana ay soo kari. Markii ay dhowr tallaabo qaaday iyada oo xagga madbaxa u socoto ayuu u yeedhay oo ku yidhi, xabiibi ma u malaynaysaa in aad fasax gaaban oo degdeg ah shaqadaadii ka heli kartid. Inta ay dib u soo jiiraysay oo si yaab ku jira agtiisa u soo joogsatay oo wejigiisa u eegtay ayay ku tidhi, xabiibi maxaa jira. Isagoo gacanteeda midig haya oo calaacasheeda salaaxaya ayuu ugu jawaabay, xabiibi wax dhibaato ahi ma jirto, ee waxa aan jeclaystay in aynu 2 usbuuc magaalada ka baxno oo aynu Talyaaniga gaadhno. Saafi oo weligeedba ku hamiyi jirtay sidii ay mar uu Talyaaniga u tegi lahayd ayaa kala badatay, waxay ku hadashana garaweyday. Afka ayaa inta ay 2 gacmood saartay isagii ku dhaygagtay. Markii uu arkay in hadalkiiba ka soo bixi waayey ayaa waxa uu damcay in uu u sheego in uu weligiis niyadda ku hayay in uu kaxeeyo oo Talyaaniga geeyo, laakiin waqtiguu saamixi waayey. Intii aanu hadalkii dhammaysan ayay afka gacanta ka saartay oo ku tidhi, xabiibi ma adaba ka daa, mar walba fasax waan helayaa. Kolkaasuu Cawaale weydiiyey, xabiibi baasaboorkaagii miyuu weli dhacay? Inta ay ku oroday xaggii ay taallay shandadii baasaboorku ugu jiray ayay tidhi, xabiibi waxaan u malaynayaa in sanad ka dhiman yahay dhicitaankiisii. Kadib markii ay muddo ku qaadatay helitaankii baasaboorka ayuu Cawaale weydiiyey, ma heshay? Iyada oo si xoog ah xaggiisii ugu sii tallaabsanaysa ayay tidhi, xabiibi waa kan. Inta ay baasaboorkii xaggiisa u fiiqday ayay u sii raacisay, xabiibi adigu hubi, weli ma aan eegin goortuu dhacaye. Isaga oo baasaboorkii uu kala furay eegaya ayuu ugu jawaabay, waa runtaa,
sanad iyo dheeraad ayaa weli u hadhay. Inta uu baasaboorkii xaggeeda u taagay ayuu sii raaciyey, xabiibi waxaad iigu ridaa shaarka aan berito gashanayo, waxa aan rabaa in aan safaaradda Talyaaniga kula kalahe. Xilka ugu weyn ee uu dowladda u hayo ee lagu tuhunsanaa Kasakow, Cawaale waxa uu aad ugu xidhnaa safaaradaha iyo dadka maalqabeenka ah ee badanaaba dhoofdhoofa. Isla usbuucii aakhirkiisiina ayuu safaaraddii Talyaaniga ka soo qaaday 2 baasaboor oo shaambadii fiisuhu ku dhufsan yihiin. Waxa ay ahayd fursad aad u qaali ah oo Saafi soo martay, waayo kama ay dhalan reer dhaqaale weyn leh ama xagga dowladda aad ugu xidhan oo u suurtageliya siday waxbarasho ama tamashle dibadda ugu tegi lahayd. Waxa ayna ilaa iyo maalintii ay qaangaadhay aad u gocan jirtay marka ay aragto hablo faceeda ah oo intaas dibadda u baxaya ama waxbarasho dibadda ah loo diray. Saafi waxa u shaqayn jirtay gabadh magaceeda la odhan jiray Luulkaas, ayse ugu yeedhi jirtay inay walaashee tahay. Saafi weligeed lagama maqal iyada oo leh Luul waa shaqaalahayga, inkasta oo jaarka badankiisu ogaa in ay shaqaale u tahay oo aanay walaalo ahayn. Haddana sida wanaagsan ee ay ula dhaqanto Luul darteed, deriska qaarkood way isku khilaafi jireen in ay walaasheed ka yar tahay iyo in ay u shaqayso. Sida ay u wada socon jireen ama u kaftami jireen waxa aad moodi jirtay 2 ruux oo saaxiibo lilaahi ah. Weligeed ma ay dhicin in la arka iyada oo si xun ula dhaqmaysa ama shakhsiyadeeda dadnimo meel kaga dhacaysa. Subaxdii ay dhoofayeen habeenkii ka horreeyay ayay Saafi qolkeeda ugu yeedhay Luul, una sheegtay in iyada iyo Cawaale safar gaaban oo degdeg ah u baxayaan. Waxay u sheegtay in aanay waana iyo dardaaran uga baahnayn oo ay iyadu reerka kasii mas-uul tahay, kuna kalsoon tahay. Waxa kale oo ay u sheegtay in waxa keliya ee ay kala dardaarmaysaa tahay in gabadhaas dhaawacan ee martida oo si fiican u xanaanayso, haddii ay kharash dheeraadana u baahato ay ka qaadato dukaanka Xaaji Garuun. Waxa kale oo ay Saafi u yeedhay 2deedii hablood ee Hibe iyo Hoodo, waxayna u sheegtay in iyada iyo Cawaale ay safar gaaban u baxayaan, sidaas darteed ay ka codsanaysay in ay habaryartood Luul dhageystaan. Gabadha walaashood ah waa Saxarle ee martida u ahna ay ixtiraamaan. Muddadii Saxarle guriga Saafi joogtay si fiican ayay u nasatay, waxaana bogsaday dhaawacii weynaa ee Cadar Duwane madaxa ka gaadhsiisay. Waxa ay ka raysatay dilkii iyo ihaanadii loo geysan jiray. Waxa ay ogaatay in weli adduunka dad wanaagsani ku hadheen oo dadnimadeeda iyo xuquuqdeeda bini'aadamnimo dhowraya. Waxa ka hadhay diiftii iyo darxumadii dusheeda ka muuqday. Waxa korkeeda ka foqay toxobtii korkeeda ku jilfowday. Waxa ay u ekaatay dad. Waxa keliya oo ay ka warwarqabtay Kennedy oo ay ogeyd in uu weli ku sugan yahay xaalad adag. Waxa uu ahaa qofka keliya ee dhibaatada haysa ay la wadaagi jirtay. Waxa ay dhowr jeer ku fekertay in ay xaafadii u lugayso si ay maruun Kennedy indhaha uga soo qaado, laakiin waxa ay ka baqday in Cadar Duwane iyo dadkeedii helaan. Intii Saxarle nasashada iyo raaxada ku jirtay, Cadar Duwanena waxa ay la tacaalaysay dhibaatadii ka haysatay shaqaale la'aanta. Tan iyo maalintii Saxarle guriga ka tagtay, waxa ay Cadar Duwane keensatay 5 hablood oo shaqaale ah, mid walibana markii ay ugu badnaan 2 maalmood u shaqaynaysay ayay albaabka ka booday. Waxaana ay Cadar ogaatay in Saxarle la'aanteed gurigeedu isku dhex daadanayo, noloshuna ku adkaanayso. Daawadayaal, intaa waxaynu ku soo afmeeri doonaa qaybtii 12aad ee buugga sheeko-faneedda ah ee Saxarle ee uu qoray Faarax Maxamuud. qaybta xigta inta aynu isugu iman doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo ammaano Allah.